rootiga saliid yar saytuun ah inta aan kor ka saaray aan dubay oo foornadan geliyay saliid saytuunta ku shubay garmash waaye rootiga markuu garmash yahay jeclahay maasha Allah oo avocado iyo malaay tan ay tijaabina maasha Allah bismillah malaayga ana horta waxaan u jeclahay dhammaan way waan fiican wuxuuna soo carfayaa sida oo hilib la dubo oo kale maalintiin ha idin wacnaato ala turoonaada insha Allah. Assalaamu calaykum kusoo dhawaada Masawa Kitchen. maanta waxaan rabaa inaan idinku soo jeediyo caan ah isbisiyaadka maadaama saxiix aan ku jiro quraacdii ama sunta يعني بدنا نقول إنه أفضل هذا السميسين كتير مع العافية مع هذه الفيديو اللي عجبيه ويجيبوا لنا نفسي بالسين زي فايدين فايدين عندنا ولا لنا سبسكرايب حتى يبصوا لنا هيجينا إن شاء الله نكون أوباهنا هاي الفيديو فيديو هستا اللي نقصر سقسمنا وحاكر أوباهنا هاي ملاي لا أنا كمان استعماله وحاكر أوباهنا هاي الكل سو dadka u badan yahay waa 4 xabo 5 xabo 6 xabo dad badan haysid adigu waay waxa kale u baahan tahay avocado marka waxaan rabaa inaan ku daro isticmaalo waxyaalaha aan ku dardarayo waxa waay korkeeda aan ku sharaxayo si xabada sawda yihi kana waxa waay kabsa basal caleenkeena la qalajiyo waay kana soo qaleed waay kan isan qoran ku xanaaya geedka waay kana أنا بحاول أساسية الصومال والواد أنا سيسمعي أنا استعمله سبيدا وحربا سبيسيتيكا وحربا روتينا سبيسيتيكا وحربا روتينا فورنا عندنا كان تجرب فورنا كدوايا سبيدا أباهنا هنا يمكسنا إيسا قسمنا وحاكا أباهنا الملط وحربا الملط وحربا السنايا وحاكا أباهنا هاي اسموركا صبقا قبل مطعم كرنا يكون عن كرنا يسيرنا أباهنا إن شاء الله سأسمعنا إلى السعودة وكل بيتين كرا عادي أخوان وعليك بوكهلي إن شاء الله للسعودة مكتبه